السلام عليكم كسر دواو شن قاب وأدوغو هرتي كرتو عذر والبا waxaa jira dhowr qaab oo aad uga hortagi karto cudur walba haddii aad samayso dadaal dheeriya xaaladahan waxay isugu jiraan kuwa juhdi iyo dhidid u baahan iyo kuwa isxisaabin iyo iska warqab guud u baahan si aad u hesho caafimaad wanaagsan iyo jir isu dheelitiran waa inaad samaysaa dadaal badan isla markaana aad bedeshaa noloshaadii hore ku soo dhawow qodobadan oo faahfaahsan cabitaan badan adiga oon u baahnayn cabista cabitaan aad u badan maalinkii adiga oon u baahnayn waxa uu kordhiyaa caafimaadka guud gaar ahaan caafimaad qabka kaliyaha saarista sunta ee jirka fooq celinta jirka sababtoo ah jirku waxa uu ka samaysan yahay 60% biyo waxa uu hoos u dhigaa heerkulka jirka sababtoo ah marka aad dhidido ama aad neefsato waxa uu lumiyaa jirkaagu biyuhu waxay ka ilaaliyaan xubnahaaga jirka dilaaca iyo naabta bal qiyaas marka aad oonto sida ay noqdaan indhaha afka iyo sanka waxa ay qayb ka qaataan dheefshiidka iyo milanka raashinka uu jirku u baahan yahay inuu dhuuqo cun raashinka qolofta leh ee dalka ka soo baxa raashinka qolofta leh waa cunto caafimaad qabta waana cuntada kali ah ee aad ka heli karto nafaqo isu dheelitiran iyo wax waliba uu jirkaagu u baahan yahay cuntada qolofta leh waa meesha aad ka heli karto fitamiinada noocyadooda kala duwan macdanta sida ironta sidoo kale waa cuntada kali ah ee dheefshiidka caafimaadkiisa ilaalin karta sida socodka caloosha cuntada qolofta leh waxay ka ilaalisaa jirka dhiigkarka sonkorta kolestaroolka wadna xanuunka waxa ay jirka ka saartaa sunta noocyadeeda kala duwan samee jirdhis inta aad awoodo almiitadu waxay u leedahay jirka faa'iido caafimaad oo aad u sareysa qaybihiisa kala duwan sida qaab dhismeedka maskaxda iyo qalbiga waxa ay siisaa jirka farxad waxa ay kor u qaadaa caqliga waxa ayna yareysaa walbahaarka walwalka iyo buuqa waxa ay xadaysaa miisaanka jirka waana xalka kali ah ee miisaanka lagu rido si jirku uga gaashaanto xanuuno soo wajaha almiitadu waxa ay wanaajisaa murqaha iyo lafaha waxa ayna qayb ka qaadataa ka faa'iideysiga jirka ee borotiinada si murquhu u dhismaan waxa ay kor u qaadaa awooddaada jireed waxa uuna awoodo qofka jirkiisa dhisa inta uusan awoodin qofka kale xoog ahaan waxa ay sare u qaadaa xasuusta caafimaadka murqaha ka hortagga xanuunada hilidda hurdo caafimaad leh iyo ugu dambeyn taran si wanaagsan u shaqeeya ha isticmaalin dawo aan dhakhtarku qorin dawooyinka aan dhakhtarku qorin ee laga yaabo in qofku mararka qaar isticmaalo in ka badan xaddigii uu qaadan lahaa ama loo isticmaalo xanuuno aan qofka hayn waxa ay sababi karaan xanuuno halis badan oo aan laga kabsan sida ku sumoomidda dawada dhaawac ku yimaada xubnaha jirka oo ay ugu horeeyaan beerka iyo kaliyaha ku dadaal nadaafadda guud dhammaan hareerahaaga waxaa ku nool bakteeriyada noocyadeeda kala duwan haddii aadan taxadirin waa ay kuu dhuuman kartaa sidaana kugu waxyeeleyn kartaa waxaan isticmaalnaa suuliga kadib marka aan xaajadeena soo dhammaysano gacmaha ma iskaga dhaqno oomo ama saabuun sidaa oo kale waxaa laga yaabaa in moobilku kaaga dhaco suuliga dhexdiisa markaana aadan nadiifin adiga oo u baqaya in biyo kaa gaaraan oo uu halaabo sidaana ay mar waliba kula noolaato bakteeriya wax ku dhibi karta sidoo kale waxaan isticmaalnaa fure saacad ama agab kale oo aan maalin waliba adeegsano annaga oo aan jeermis dilin ogow tilaabo walba ka hortag ayaa ka wanaagsan